asalaamu calaykum halkani waxa weeyaan caasimadii dalka suuriya ee dimashik oo gebi ahaanteedba ay la wareegeen maanta oo taariikhdu ah tahay 8 bishii 12 2024 dagaalyahanadii ay hogaaminayeen islaamiyiintu kuwaas oo soo xaaqay soo qabsaday dhammaan gobolada dalka ayaa maanta ku dambeeyey inay qabsadaan caasimadii suuriya ee dimashik halkaasoo ay ku dhammaatay 50 sano oo ay ka talinayeen qoyska bashaar al asad dalkaasi suuriya bashaar al asad ayaan la ogeyn meel uu ku dambeeyey isagoo oo loo badinayo inuu ka baxsaday dalka waxaa la sheegay in diyaarad military ay raadalada dalku ay soo qaban waayeen kadib la filayo in uu diyaaraddaasi ku baxsaday arrintan ayaa la yaab ku noqotay caalamka kadib markii jabhadan cusub ee la sameeyey ay si dhaqso ah ula wareegtay taladii dalka ra-iisul wasaaraha suuriya ayaa sheegay in uu isagu joogayo oo wada shaqeyn la sameyn doono inta lagu wareejiyo talada dalka oo uu si habsamiya ula shaqeyn doono inta lagala wareegayo xilka waa arrin la yaab leh aad baad u mahadsantihiin daawadayaal